wuxuu daaran yahay salay waxaa arkayseen social media la soo dhigay laba gaari oo dagaal iyo wiilal saaran dhowr qof oo saaraa oo la yiri waxay ka tageen jiida hore ee difaaca ciidamada Puntland la yiri qodqoy ka tageen laba nin baa hadlayay labada nin yaqaanay ahaayeen waa nin qaadwala ah Ibrahim Geedi baa la yiraahdaa nin waa qosli markuu hadlayo ka hadlayo lahaa qodqow aanu ka ninna wuxuu yiri awal baciidan kan aanu ka tirsanayno jabad baan meelaanu joogno waxaanu cadeynaynaa ummadda reer Puntland oo cadeynaynaa in aanay nimankaas ahayn waligoodna ka mid noqon ciidamada dawladda Puntland waligoodna kama mid noqon kamana mid ahayn waxay ahaayeen sida ay sheegeen ninka aan sheegay qaadwalaha la yaqaan waa qaadwale isaga baan isku qosay markuu warramay isaga afkiisa ku sheegay inuu kamid ahaa wuxuu ku tilmaamay saliga toddobaad ciidankaas kamid ahaa buu yiri baabuurka uu wateena kaasuu ahaa wuxuu ka yimid dhanka waan filayaa yeyle iyo meelaha waan garan karaa godqawoobe ilaa yeyle iyo goori ciidanka aaday soo maray deeran ahayn ciidan jiida hore ka baxay marka waxaanu cadeynaynaa in ciidankaas aan ciidan ahayn Puntland leedahay ay yihiin nin wax meesha uu joogay baabuurka cad ee Cabdi Balaaha waxa iska isagana in la yiraahdo aadanka hawada yogoori uu joogaa halkaas ku bulshada qaataa boqol wiil buu kaga bulshada qaataa nimanka Soomaalidiidka oo aan jirin marba in wax leeno soo madoobeeyo waxa la fulow hilaaciya kulowga iyagii baa isna waxna sheegaya isna shariiraya horta wuxuu saas weeye waxa loogu talagalay in moralka laga dilo dadka reer Puntland in moralka lagu dhiso ciidamadoodan kala yaacaya ee kala firdhanaya sool inuu ixtiraaf ku helayo ama dhaganugeyl uga helayo beesha caalamka iyo dawladda federaalka uu habar wacdo waxaan u sheegaynaa arrinkaas inuusan ahayn arrin garowsiyo uu ku helay waxaan u sheegaynaa haddii dhalinyaro reer sool la soo aruuriyo oo la soo bandhigo inaan ixtiraaf lagu helayn Somaliland aysan soo noqonayn haddii qoryo la soo qaato oo la dhex joogo aysan laascaan oo Somaliland noqonayn